مشرح madaxweynaha xisbiga mucaaridka ah ee ucid Jamaal Cali Xuseen ayaa maanta ka soo degay gegida diyaaradaha caalamiga ah ee Berbera halkaas oo uu dib uga soo laabtay safarro uu ku mareeyay wadamada Yurub. Jamaal Cali Xuseen oo ay ku soo dhaweeyeen madaarka caalamiga ah ee Berbera xubnaha uu ka mid ahaa Mujaahid Ibraahim Dhagaweyne iyo xubnaha maamulka gobolka ee heer xisbi ayaa hadal halkaasi ka jeediyay kaga warbixiyay socdaalkiisii waxaanu ka warramay kulamo uu ku yeeshay wadanka Sweden oo uu ku tilmaamay qaar miro dhal ahaa waxaanu yiri la dhageystay waxa hay'adu safaraanu qadayda Soomaaliland runtii ku iibinayno xisbigeega ku iibinayno fikradayda ku iibinayno ayuu safarkaasi oo ahaa waan safaraan martiqaadaan aan helay waana week baan ku joogay wadaysan oo aan caburinahay inay keenaan oo ay tusayaan waxyaalihii la qabtay laakiin aan laga badbadin imika waxaan aad u dhaliilayaa baarlamaanka Soomaaliland oo miisaaniyadii sanadkan aad arkaysay in si yar hawl yar Ireland isaga baasgareeyay waliba shahaado sharaf loogu daray wasiirkii maaliyadda adduunka waxaas kama dhacdo imika waqti dalka Mareykanka waxa ka dhacay in la isku haysto budgetkii baarlamaankii madaxweynaha ismari laayay inagana Soomaaliland shahaado sharaf baa la siinayaa wasiirkii maaliyadda waxaanu doonaynaa waxyaalaha budgetka ku qoran maaha dhowr wasaaradood oo la isku dardaro muhiim ah sidoo kalena Ibraahim Dhagaweyne ayaa isaguna halkaasi hadal uu ka jeediyay waxa uu ku soo dhaweeyay musharaxa madaxweynaha xisbiga uu dalka uu dib ugu soo laabtay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa inta ka badan baa leeyahay reer Berbera ama jimcaha ama maalin kale ahaatee magaaladana dib u xoreyn bay u baahan gudoomiyaha xisbiga uu cid gobolka Saaxir Roode Axmed Yaasiin halkaasi ka hadlay ayaa dhamaantood iyaguna soo dhaweeyay soo noqoshada musharaxa madaxweynaha xisbiga uu cid waxa weeyaan waxyaalo badan oo ay dadka qaar filanayaan waxaanu ka haysanaa 90% inuu garaafkayo kor u sii kacay guushaan uu kugu fashaareynaa intaasi kadibna waxa lagu soo wareejiyay jeedka kala duwan ee magaalada Berbera waxaana uu halkaasi kala hadlay qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiga uu cid xafiiska dhexe ee xisbigaasi isagoo uga mahadnaqay soo dhaweyntaasi ballaaran ee ay ku qaabileen Cabdikariim Saciid Saalax Home Cable TV Berbera.